راديو مانتا إذا عدى مانتا مانتا راديو مانتا sidee lagu heli karaa bulsho mid ah oo wanaag iyo nabad ku wada nool waxaan samayn doonaa barnaamijyo kooban oo aan bulshada ugu tilmaami doono dowga saxan maadaama saxaafadu ay tahay isha bulshada kaalintaas ayaan diyaar u nahay inaan buuxino asxaabay راديو مانتا إذا عدى مانتا مانتا راديو مانتا marun baa in nabadu ay ku imaan karto isdhexgalka bulshada haweenka qayb ma ka noqon karaan dadaalada nabadda iyo horseedka horumarka ee bulshada adiga naflada janabtiganaada dooja haweenku nabadda waxay ka qayb qaadan karaan in badan markay colaada jirto haweenku waa kuwa kaliya ee baraarujiya dadka dhibka wado nabadda markay timaadana haweenka waa kuwa kaliya ee ayagu isku daya inay nabad u sacbatumaan marka laga hadlayo dhanka isdhexgalka bulshada haweenka kaalmo badan ayay ka qaataan haweenku waa kuwa kaliya ee isku xira dunida dadka ku nool marka laga hadlayo qaabka nabadda isdhexgalka bulshada waxay nabadda ka qaadan kartaa in bulshada la isdhex keeno isla markaana ay wadaagaan arrimaha ama waxbarashada oo kale caafimaadka oo kale arrimaha ciyaaraha oo kale iyo waxyaabaha la mid ah waxaan isleeyahay runtii waxaa lagu heli karaa nabad buuxdo oo la isku hadlayn karo sababta waxaa dhumaya kala shakiga bulshadu ay kala qabto waxaana meesha ka dhalanaya is-aaminaad taasna waxay horseedaysaa inay nabad dhalato isdhexgalka bulshada waxaa lagu heli karaa in wax la barto oo dadku cilmi bartaan maadi iyo diini labadaba ay bartaan qofkan inuu Soomaali yahay qofka kalena uu aqoonsado sababtoo ay tahay dad walaalaha hal midab ahaanahay oo hal jinsiyad oo hal jufa oo hal qabiil oo meel wada degan waxaan ku yaafalaa isku taagtaagayna hebel waasaan diintii iyo maadiga iyo wixii la bartay oo dhammaan daaqada ka baxay daawada qaybta aragtida noogu reeb fikirkaaga inaga oo isla qaybtan oo lagu daray aragtidiina ka samayn doono barnaamijyo insha Allah radio maanta and TV saaxiibka bulshada